hogaamiyaha SSC Qaatumo Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye iyo wafdi hogaaminayo ayaa galabta waxa ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana wafdiga soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo isugu jiray wasiiro iyo xildhibaano. Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye hogaamiyaha SSC Qaatumo ayaa waxa uu ka qayb galayaa shirka golaha wada tashiga qaran ee 5 bisha May ka furmaya magaalada Muqdisho waxaana ku casuumay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo ka dambeysay booqashadii uu wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku tagay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay maamul ugu aqoonsatay SSC. hogaamiye Firdhiye ayaa waxa uu sheegay in booqashadiisa iyo ka qaybgalka shirka golaha wada tashiga qaran inay ka dhigan tahay in dad matalaya gobolada waqooyi inay ka qayb galaan shirka golaha wada tashiga oo uu sheegay inaysan hore uga qayb gali jirin taasi uu sheegay inay muujinayso sida shacbiga Soomaaliyeed ugu heelan yahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. laakiin shirka golaha wada tashiga qaranka ayaa waxaa diiday inay ka qayb galaan madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. sarkaal u hadlay maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu sheegay in Puntland aysan ka qayb gali doonin shirka golaha wada tashiga qaran ee 5 bisha May ka furmaya magaalada Muqdisho waxa uuna sheegay inay ka soo horjeedaan wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka ee uu muranka ka taagan yahay. sidoo kale maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xiriirkooda u xumaaday kadib markii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan uu sheegay inuu ku guuleystay doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo taasoo dowladda federaalka Soomaaliya aysan aqoonsaneen. shirka golaha wada tashiga qaran ee 5 bisha May ka furmaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galaya madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. hase yeeshee maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ka qayb gali doonin taasna waa mid markaasi aan wax micno ah u yeeleen shirka iyadoo markaasi shirkaasi uu noqonayo mid aan loo dhameyn waxaana shirka haatan u furmaya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya diiradda lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka iyo amniga.